Asalaamu calaykum soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa baabuurka yar ee ilmaha socodka ku bartaan ilmaha faa'iido ma u leeyahay iyo waxaan kaga hadli doonaa faa'iido uu leeyahay iyo dhibta uu ku keenayo ilmaha tee badan muuqaalka taas ayaan kaga hadli doonaa insha Allah soo dhawaada haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo saar kambalelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsantaana like noo saar asxaabtadan u sii share gareyn baabuurkan yarka ah ilmaha ay socodka ku bartaan oo xilliga ay soo gaaraan ilmaha inay socod bartaan oo kale hooyooyinku soo gadaan oo ilmaha socodka lagu baro ilaa iyo 4 dhibaato oo ilmaha u leeyahay ayaa muuqaalkan kaga hadli doonaa insha Allah muuqaalkan 4 dhibaato uu leeyahay ilmaha uu ku keenay ayaan kaga hadli doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waana warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka Mareykanka ee caruurta warbixin ay soo saartay waaye dalal badan oo caalamka kamid ahna waa laga mamnuucay oo looma ogol in hooyooyinka ama la soo saaro kale ama suuqyada lagu iibiyo si hooyooyinku u gataan oo kale mamnuuc ay ka tahay in suuqyada lagu iibiyo wadamada qaar marka insha Allah muuqaalka kaas ayaan kaga hadli doonaa waxaa dhici karta in hooyooyinka qaar oo kale ay dhibaatooyinkan aan sheegin aysan la kulmin hore ilmo ay u sameysteen aysan la kulmin waxaa dhici karta in hooyooyinka qaar ay la kulmeen caadi ahaan caafimaadku waxa uu ka hadlayo ma ahan 100% waxa ay dadkan ka wada siman yihiin laakiin wuxuu ka hadlaa inta badan waxaan maxay dhibaato leeyihiin waxaan dhibaatadiisa iyo manfaacadiisa tee badan ayuu caafimaadka ka hadlaa marka ma ahan muuqaalka inaan leenahay cunug kastoo la saaraa qasab 4 calaamadood way ka soo baxeen dhahayna ma ahan 80% 90% ilmaha 4 dhib ayuu ku keenaa waa sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka caruurta ee Mareykanka ee ka hadashaa insha Allah marka soo dhawaad waxaan rajeynaynaa ka faa'iideysan doontiin dhibaatada koowaad oo cunugu uu leeyahay ilmaha xilliga ay ku jiraan socod baradka dhibaatada koowaad oo cunugu uu leeyahay waxa waaye in cunugii murqaha ilmaha markii ay soconayaan waxay ka socdaan inta dambe ayuu qofka bini'aadanka ka dhaqaaqa inta dambe marka laba loo kala qaadaa waa inta qaybtan ka bilaabato sinta ilaa iyo jilibka oo qaybta koowaad ah iyo jilibka ka bilaabato ilaa iyo cunug intuu dhulka uu ka dhigayo labadaas ayay u kala qaybsan tahay marka cunug lagu fadhiisiyo baabuurkan ilmaha socodka ay ku bartaan cunuga wuu fadhiyaa lugihiisa dhulka gaarayaan murqaha marka lugaha waxa ku jira murqo lafaha kaliya ma aha waxa socda murqahan iyo lafaha iskaashada way wax soconay hadii qofka murqihiisa isa shaqaynaynin qofka socodkiisa ma dheelitirmaayo oo ma yeelanayo tawaasun ma yeelanayo marka murqaha maadaama cunuga uu fadhiyo baabuurkan uu ku fadhiyo jilbaha wixii ka hooseeya murqaha ah way dhismayaan oo waxay noqonayaan murqa caadi ah oo sida loogu talagalay dhismooda u socdo shaqadooda u socoto dhulka dhigmayaan waaye marka koowaad laakiin murqaha ka soo bilowdaan sinta ilaa iyo jilibka ka imaanaya cunug wuxuu ku fadhiyaa baabuurkii ma dhismayaan marka waxa imaanaysa cunugii baabuurka markuu ku socdo asagoo fadhiyo lugaha taas uga nuuxnuuxina baabuurka uu socdo cunug wuxuu isku malayaa inuu asaga socdo hadhowti marka waxa dhacayso cunugii markuu yiraahdo socon karta hooyada cunugii baabuurka ku orday ay aragto inay baabuurka ka bixiso dhulka ay fadhiisiso ay sira marka cunugii waa socon karaa maxaa socona cunugii siimaha ilaa jilibka murqihii ahaa oo boodiyaha iyo ku xiriirsana dhan way jilcan yihiin ma adkaanin oo cunugii ma ku istaagi kariyo jilibka wixii ka hooseeyay murqihii ahaa way fiican yihiin koriinshii loogu baahnaa way sameeyeen way adkaadeen cunugina ku socdo rabaa marka tii hoose oo cunugii baan u sheegtay hooyada baan u sheegto tostay inuu cunugii socon karo iyo kuwii kore oo ku fadhiyeen kursigii soomankiisa ku fadhiyeen oo aan socon karin oo adkaanin hadhow cunugii istaag markuu yiraahdo waxa ka dhumay dheelitirnaantii لأن مرقها هو سو إني كوه كره عليان كوه كره ما أتكانين كوه هو سو حبي معلين كران مركه عنق حق ما ديل ترنانتي وعنق حب اللعبة دح احتراب بدن أيوب اللعبة وحين كوه قاعدنا وقت كله أو كيك بدن إن عنق مرقهن كله بودوين كالاسمان وقت أي قاعدني تنكواد وقلبتاس وعنق إن لوهيسي قيبنا مرقيه الاسمان قيبنا إيسان اسمين تاسوا دباتة كواد دباتة اللواد وليه وحاواي عنق مركو سعانايا وإنه أركاد دولك وإنه دولك فيريا si wixii dhulka yaalo uu uga wareega oo maxaan lahaa oo haduu ka wareegi karo kale ka wareega ama ku istaaga ama ka fariistaadi wixii wax weyn yihiin kale uusan ka wareegi karin inuu ka fariisto cunuga baabuurka markuu ku jiray waa iska ordi jiray bis
ma yaqaano cunuga inuu dhulka fiiriyo hadhowta markaan baabuurka ka bixisad cunuga socod inuu ku bartay aa aragtid dhulka cunuga fadhiisisid markuu socays yiraahdo dhulkiis ma fiiriyahay hortiis oo fiirina caadi u soconaa cunuga wixii ka hor imaado inuu dardaro marka dhicitaan tiro badan yeesho ayaa imaanaysa hadhowti in dhicitaan tiro badan uu yeesho ayaa ku imaanaysa cunugii maadaama uusan baranin dhulka fiiri liana qalabkan ayaa u sheega been oo ka dhaadhiciyay cunugii inuu socon karo taas waa qaybta labaad oo ah in cunugii uu dhibaato kala kulmo baabuurkan ilmaha socodka ku bartaan tan saddexaad waxaa waaye qalabkan baabuurka ilmaha socodka ay ku bartaan cunuga markuu ku jiro kale control ma lahan guriga gees ayuu gaaraa waxaa laga yaabaa jikada ayadoo lagu jirin cunugii inuu galo gaaro maxaa la dhahaa meesha hooyada cuntada ku karinaysay uu gaaro meel waxyaalo kulul ay yaalaan meel waxyaalo qabow ay yaalaan oo kale cunugii inuu gaaro ka joog uusan aqoonin wixii oo dhan uu dardaro dhibaato ah waa laakiin cunuga markii uu asaga caadi ahaan garguuranayo kale ama asaga uu socdo waqtigii ku qaadanay waxaa laga yaabaa insha Allah cunuga Ilaahay badbaadiyo ayaa badbaado cunuga maadaama asaga lugihiisii iyo gurguuradkiisii iyo socodkiisii asaga is controlayo inuu meeshaas gaaro waqtiga qaadanay waxay u badan tahay inuu qof arko cunuga sii socdo laakiin baabuurkan sii jeesata bisay kaaga xirantahay asaga la ordaa cunugi intii guri shamiinday oo kale ama mutuleel adiganta oo kale cunuga asaga isla markiiba intuu la hada waxaa arkay cunuga waxa ka joog markaa sii jeesato waxaa arkay soo bulshada korkeeda taagan iyo meesha ku korko cuntada ay ku karinaysay marka waxaa qurux badan in baabuurkan hooyooyinka iska dhaafaan cunugiisi asaga naftiisa ugu kalsoonaado uusan ku kalsoonaanin wax been ah asaga isbaraa inuu socon karo inuu istaagi karo kale inuu asaga isbaraa tan afraad oo ugu dambeyso oo ah dhibaatada ay ku keenayso baabuurkan ilmaha dhibta ugu keenay tan afraad ugu dambeyso waxa waaye maadaama cunuga baabuurka uu ku jiro fadhigiisana uu badan yahay oo jasta cagahaas uu ka nuxnuxinayo cunuga waxaa dhici karto in cunugii uu ku yimaado tashawuh ama taqawus uu ku yimaado saaqinka cunuga in wax yar godladaan oo kale godlashayaan dhihin way godmayaan oo kale dad ma aragteen oo markay soconayaan oo kale lugahooda oo gudan yihiin oo kale lafihii iyo wixii ay banaan ku bixin qaybta labada lug dhexdooda meesha ay ka kulmi lahaayeen oo kale god ay ka yihiin oo kale ay ilmaha qaar ku keentaa taqawus iyo tashawuh hal laha Soomaali ahaan si fiican u sixi kari in cunugii uu lugaha qaybta lugaha meesha istaaba lahayd oo kale cunugii god ka noqdo oo qaybiyo banaanka xiga cunugii ay koreeshiis oo u bato kale maadaama uu fadhiyo cunug lugihiisa taas ay soo imaanayaan oo kale in lafihii ay banaanka ku koraan qaybta gudahana cunugii uu god ka yeesho kale hadhowtii kale oo u baahdo cunugii in qaliin lagu sameeyo ayaa dhici karto in qaliin lagu sameeyo ayuu u baahan kara hadhowtii marka afartaas qayb ayaan ku soo koobaynaa walow qaybta dambe si fiican Soomaali ahaan aan u sheegin waxa rajaha laakiin insha Allah ina fahanteen afartaas qodob ayay lagu soo koobay dhibta ama qaybta uu leeyahay baabuurka ilmaha socodka ay ku bartaan marka hooyada ayada joyska ama qayaarka iskale ayadoo og afartan qodob hadii ay go'aan ku gaarto hool fuudeys ahaan in cunugii baabuurkan ay ku rido insha Allah inuusan Ilaahay waxba kala kulansiinin ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah hadii hooyadii ay go'aansatay inay iska diiso cunugeeda si cunug asaga naftiisa kalsooni isugu qabo asaga oo wax u barto oo cunug noqdo qof asaga naftiisa ku kalsoon ayadana ay ku kalsoonaato in cunugiisa ayada asaga oo wax bari doono insha Allah hadii iska dhaaftana alxamdulillah waayo oo cunuga caafimaadkiisii iyo kalsoonida naftiisa taas ayaa u khayr badan insha Allah ma aha wax ilaa qofka iska deel lahaay dhibta uu leeyahay qofka waa loo sheegaa asaga go'aankiisa kale inuu qaato iyo inuusan qaadan laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah in fiidiyowan ka wada faa'iideysateen hadii markii kugu horeysa aan soo booqatay taa subscribe noo sarga marelkana furo si fiidiyoda cusub ku soo gaaran hadda familka ka tirsan taana like noo saar asxaabtan u sii share gareyso dhawaada